wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha ciidanka dabdamiska gudoomiyaha gobolka Togdheer saddexda maayar ee Laascaanood Boorame iyo Hargeysa xogayaha maayarka Wajaale xogayaha Berbera dhamaantiin ciidanka qalin jabinaya halkan ka baxay tababarka dhameystay suldaanka iyo xildhibaanka reer Ergaabe isna ka yimi Ergaabo dhamaantiin waa salaamintiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay in ciidan cusub oo ku soo biiray ciidanka dabdamiska in maanta halkan tababarka loogu xidho aad iyo aad baan ugu salaamaya waxaan se idinkula dardaarmaya horta laga bilaabo maanta waxa ku jirtaan xaydaankii ciidannimo soo gasheen hawl muhiimana waa haysaan xaydaankii ciidannimona waa ku jirtaanoo sharcigii ciidanka idin qabanaya xagga kalena ciidan madani oo ummadii baa badbaadinaysa hawl muhiima oo farsamo muhiima baa haysaan waxaan idinkula dardaarmaya ciidanku miidiyaha waa ka xaaraan miidiyaha ciidanku kuma wada hadlo waa arrin maamul waxa ciidanku waa arrintiisu waa arrin ciidan laguma hadlo miidiya lagama wada hadlo bariyahan waa arkayseeno rag idinka soo horeeyay miidiya waa ku hadlay laakiin waa mamnuuc sharci baa qabanaya waa ciidan waa mamnuuc in laga wada hadlo miidiyaha jaran iyo qaab bay leedahay loo dacwoodo haddii aad wax tabanayso taas ma anigu kula dardaarmaya inay idinaa sharciga toosin ninkii sharciga ku joogsada wuu toosiyaa sharcigu halkaas uu yaala dad ku joogsato wuu toosaya marka waxa weeye iska ilaaliya taano salaamu calaykum waraxmatullaahi ilaahi baa mahadle ilaahi isugu keenay maalintan qaaliga waa maalin axada bishu waxa weeye waa 9/2020 shalay ahayd wixii la idin soo xulay halkan duco iyo dardaaran un baa yaala marka hore waxaan ku salaamayaa eebba mahadii kolka naqo dhalinyarada halkan joogta anu dhalinyaraan u haystaa nin walo xil sidii nin kalabe oo laga bilaabo wasiirka maayirada barasaabada jananada hogaanka kale waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu horta ilaahay baynu mahadiisa naqaynaa mar walba marka labaad waxaynu ugu mahadnaqaynaa taliyaha ciidanka dabdamiska sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo u horay dheecaankiisa iyo dhiigiisiiba sidii ku yimid halkan imaka waqtiga ugu gaaban dhamayn maayo laakiin ilaahay baa miisaanka xasanaadka ugu dari doona qarankiisii buu shaqeeyay waxaan leenahay jazaakallah marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maayirka magaalada Hargeysa ama maayirka maayirada Cabdilcasiis Cabdiraxmaan oo isagu ahaa ninkii fikradan oofiyay ee ilaa maanta la daba taagan ee meel kasta oo uu dabdamiska hilaacaba raadkiisu ka muuqanayo taariikhdana ku qornaanayo dawladda hoose Hargeysana waxa weeye ilaa maanta wali qacanta kamay qaadin ayadoo sharciyan loogu leeyahay xaq hadana waxa weeye ninkii alla garansiiyo ayuun baa deetirsan kolka waxaan leenahay maayir jazaakallah ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro maayirada ciidan iyo Saleebaan iyo ragga kale Cabdilcasiis ay ka mid yihiin iyo Cabdiraxmaan la shaqeeyay dabdamiskana waxaan leeyahay jazaakumullah khayral jazaa hawshiinii qaran iyo tii dadnimo iyo tii wadbawaad oofiseen ilaahay idinkana miisaanka xasanaadka idin saaro ducaan raacinaya dhalinyartani waxay ka nasahan yihiin oo ay ka meeydan yihiin wax qabiil la yiraahdo wax balwad la yiraahdo wax maanta caajis la yiraahdo waa ragga hufan ee maanta la soohay ee maanta idinku aad ku farxaystaan waxay qabanayaanna waxay u taalaa ayaga ilaahay baynu israacinaynaa sababtoo ah qarankoogii bay maanta u yihiin kow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kolku sameeyay shaqo qaran wuxuu yiri qarankiina u shaqeeya annagu waxaan idin leenahay dabdamisku waa sawirka qura ee Soomaaliland ka soo baxay ee intaasoo sanado 30 sanadood ay jirtay waa hay'adda qura ee jaranjarada ka booday ee labin laabtay saddex laabtay ee maanta lagu soo hiranayo ee lagu majeeranayo cid waliba ay leedahay igaarsii dabdamiska kolka waxaan halka idinku sheegaya halka taagan tihiin in 200 oo inay taagan yihiin ama hablood oo leeyihiin angalo kolka haddaad banayso oo ka saaqido bedelkaaga ugu joogay ogow
talabaad wixii la idin geliyay ee cilmiha ee juhdiha ee tacliinaha ee yarun la idin kaga hadhmay hadaad iska tagtana xukun military baa lagu qaadiyo waa lagu xidhay naftana u sheeg intii baa laga soo daacinaya lagu geliyay waa xukun military ha ku farxina inaad islaadaan waan yar seexan kolka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay wadankeena mustaqbalkiisa ha inoo ifiyo kuwii aakhira inoogu tagay noo shahiiday maanta waxa aynu harsanayna inoo keenayna ilaahay qabriga ha u nuuro aad baad u mahadsantihiin halkan la leeyahay suldaanka guud ee debdemiskana iyo uu ku dara suldaanka guud iyo debdemiska iyo uu bal yar raaciya waanad mahadsantihiin wasalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jannada ciidamada debdemiska iyo maariniska gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaha gobolka xogayaha fulinta dowladda hoose ee Hargeysa saraakiisha kale iyo hoggaanka ciidamada debdemiska qaranka oo suldaanku ugu horeeyo dhalinyarada halkan ka qalin jabisay iyo baxda saxaafadda iyo cid kastoo aan lagu halkan joogta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa de hadalkeenu maanta labada qodob buu ku wareegayaa in loo mahadnaqo hoggaanka iyo ciidanka debdemiska qaranka oo runtii wax lagu farxo muujiyay markaan dhalinyarada gobolada ka keenay caynkay ahaayeen iyo de maanta oo ciidan qaran oo dhisan oo ciidankeena ku biiray ay yihiin in looga mahadnaqo runtii oo aad iyo aad loogu bogaadiyo iyo qodobka labaad oo ah dhalinyarada maanta ciidanka qaranka debdemiska oo ciidanka guud ee qaranka Soomaaliland ku biiray in loo mahadnaqo runtii aad iyo aad baan idinku in loo hambaliyeeyo baan u jeedaa runtii aad baan idinku hambaliyeenaynaa waana idin duceynaynaa dhammaantiinna wada baarigaynaa waxyaalaha ugu yar ee halkan ka faa'iideen waxa kamid ah maanta halkan isugu timaadeen min Boorama Laascaanood ilaa Berbera ilaa Burco iyo Hargeysa ayaa la iska keenay qofna qof muu aqoonin community gaaraba abuurteen maanta dee qof waliba qofka kale intaas bilad buuda joogteen walaala noqoteen inta ugu yar horta waa inta ka soo weyn waxweyn in ciidan qaran oo Soomaaliland leedahay aad tihiin marka waxa weeyaan dardaaranka halkan la idinka siinay ee idinku celcelinaya waxa weeyaan in qarankiina u shaqeysaan annagu haddaan nahay maamulada degmooyinka oo dhan oo isku duuban runtii waxaan ballan qaadaynaa horena aan u ballan qaadnay inaanu la shaqeyno ciidanka debdemiska qaranka iyo inaan idin soo dhaweyno imika waxa la yaabaa goboladiina in laydinku kala daro laydin kala diro laakiin ugu dambeynta waa la isku kin dhex diri doonaan mid baa Laascaanood laga keeni Berbera la keeni mid Berbera la kaxayno Boorama la geyn inaad taa maxay tahay ogaataan iyo in aad iyo aad u dadaashaan ilaahayna haydi barakeeyo waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan halka salaamayaa madaxda sharafta leh ee isugu timi oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha taliyo ku-xigeenka suldaanka guud ee debdemiska intaaba aad baan ugu salaamayaa maayarada iyo gobolada iyo xogayaasha aad baan u salaamayaa intaa ka bacdi anoo ku hadlaya afkii maayarka Cergaabo kii golaha deegaanka kii degmada Cergaabo shicibkii soo doortay waxaan idinka sidaa salaan aad u qaale intaa ka bacdi 6 bilood ka hor anigu waxaan ahaa raggii la tartamayay inamada halka fadhiya ee ka yimid degmadeeda maanta waxa ay farxada in qalin jabintoodii aan la soo kulmo ana Hargeysa jooga wa fillahi hamdi waxyaaba ilaahay aad ugu mahadnaqo waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka markii la soo qoray iyo maanta waa kala duwantii maalintii waxa ahaydeen inamo la tijaaminayo orodkooda socodkooda say wax u qaadi karaan laakiin maanta xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi juhdi bay idin gelisay juhdi gudaha idinkay wax idin gelisay waxa idin gelisayna waxa la rabaa meelaha ka timaadeen waxaan la rabnaa meelaha ka timaadeen ilaa kula noqotaan aqoontii halka ka barateen inta ka bacdi annagu haddaan nahay degmada Cergaabo diyaar baan u nahay waana sugaynay markii hore iyo hadeer bara shaqadu sidii hore loogu socotay noogu socotaa inamadan aad tababarteen sawaaxili aad baan kugu mahadnaqaynaa degmadina waa sugaysaa annaga hor istaagan iyo baabuurta laga qaylinaya waxana horaan u sii tababaran waayo annaga isagoo GBLG la soo gaarin wax kale la soo gaarin dhaqaale badan aan lahayn ayaanu naftayda ka abuuray gole deegaan ahaan iyo maayar ahaan inaanu ciidanka debdemiska culays xoog la saaro
dadka annaga wacyi gelinay wadooyinka calaamadan u sameynay in dabdamiska loo baneeyo wacyi gelintoodii dadku sidii bay u haystaan kuwanina xirfadii iyo aqoontii markay wala tagaan waa tii oo si laba kaclayso inta ka bacdi ciidanka dabdamiska waxaan kula dardaarmayaa waxbaa laydin geliyey juhdi baa laydin geliyey maskax baa laydin geliyey waxbaa laydinku biiriyey ha moodinina qofkiina caadiga inaad tihiin waa korba uga kacdeen qofkiina ciidan qaran baa noqoteen ciidan dabdamis baa noqoteen haddaan sida kale u rogo oo aanu isla garanayno yeekaa tihiin yeek meel walba galaa tihiin waxaa laydinka baahan yahay wixii kasta oo laydin geliyey inay idinka muuqato intaasoo gobol baa ka timaadeen dadka intaa gobolaa ka timaadeen wixii halkaa kala tagteen ayaa laydinka rabaa waxa weeye muraayadii baa ka soo baxdeen iskriimkii la daawanayay idinku baa noqon doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan ibraahim aad ayuu mahadsanyahay